السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyadoo ay dhici karta inaad ka dharagsan tahay waxtarka saliid saytuunta ayaa haddana malqaacad saliid saytuuna oo qofku uu cabo subaxda hore intaanu waxba cunin waxay leedahay waxtar kale oo cajiiba sida lagu sheegay daraasado badan oo xilliyo dambe la sameeyey malqaacad saliid saytuuna oo qofka subaxda hore caba waxay ilaa xad wanaajisaa oo ay ifisaa muuqaalka sare ee jidhka waxaanay xoojisaa oo ay wanaajisaa shaqada wadnaha iyo habsami u shaqaynta unugyada dhiigga waxaanay daraasado badan isku raaceen in malqaacad yar oo saliid saytuuna oo subaxda hore la qaataa ay ilaa xad jidhka ka ilaaliso kansarka waxaanay ka hortagtaa calool istaagga waxaanay degdeg u kaxaysaa casiraadda caloosha iyo dhammaan cilladaha la xidhiidha dhinaca caloosha waxaanay dawo ka tahay igfashanka noocyadiisa kala duwan waxaanay qayb weyn ka qaadataa korriinka timaha waxaanay nadiifisaa beerka waxaanay dawo ka tahay xanuunada ku dhaca kaadi haysta waxaanay ilaa xad hoos u dhigtaa khatarta kolestaroolka halista ah waxaana baraarujin mudan in saliidda aad isticmaalaysaa ay noqoto saliid saytuunta asalka ugu dambeyntiina daraasadahani waxay ku taliyeen in dadka qaata kiniinka dhiigkarka iyo dadka qaata kiniinka macaanku inta aanay qaabkan u isticmaalin saliidan inay dhakhtarkooda la tashadaan ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب